asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu soo dhawaada dhammaan khiyaarta ku xiran baraheena bulshada meel kastoo joogtiin waxaa idinku soo dhaweyneynaa gacmo furan rexmayo dal iyo dibadba kusoo dhawaada shirkadda dhismaha ee shaatacadda group waxaan idin ogeysiineynaa in maanta aan bilownay mashruuc cusub oo ka kooban 5 qol 4 hurdo ah iyo qol fadhi ah. mashruucan waa mashruuc dhismihiisa iyo design-kiisaba anaga aan leenahay ka shirkad ahaan. mashruucan wuxuu ku yaalaa magaalada Kismaayo xaafadda Farjano caymiska agagaarka madaxtooyada. mashruucan insha Allah tacaala waa mashruuc mid kamid ah mashaariicdii aan fulinay sanadkan si dhamaanayo. waxaan rabaa markaa inaan idin sheego in dhismaha ka hor intaan la jeexin anaga aan sameyno setting out waxa loo yaqaano isbaaga xirkaas ama design-kii aan computer kusoo sameynay ayaan CDC ugu sawirnaa dhulka. sidaas la mid waxaan xaqiijinaa in dhan walba uu yahay 90 degree ama squadaraha aan ka saarno anagoo isticmaalina toolkaas birtaas elta ama squadarada iyadoo yar iyo iyadoo weynba. marka waxaan idin sheegayaa in maalinta koobaad guriga la jeexayo ayna fiicnayn in waxa weeye markaas laga bixiyo squadarihii waxa weeye laakiin anaga ka shirkad ahaan preparation fiican ayaan sameynaa kow design ayaan soo sameysanaa marka design aan soo sameyno mashruuca la isku raaco la approve gareeyo oo heshiino client-iga aan u shaqeynaynay waxaan si saxan oo degdeg lahayn kalsooni ku dheehan tahay aan u sameynaa guriga inaan fadhiisino. marka aan fadhiisino maalinta ku xigto ayaan dhismaha bilowna hada shaqadan jeestadaas ama nuurada idin muuqato oo guriga aan design ka sameynaya shala oo bisha 9 ayaan qabanay. marka maantana waa kana dhismihii ayaan bilownay 10 bisha 12 2025 ayuu mashruucan aan bilownay. insha Allah taala waxaan rajeynayaa muddo hal bil ah inaan kusoo gabagabayno haddii client-iga qalabka uusan ka kala goyn. marka qaabka waa shaatacadda group biyaanteerka u dhisan waa kana waxa weeye 40 baa inta badan magaalada la qodaa marka 40 la qodo dhagaxa ayaa lagu shubaa shaqaalaha kadib ayaa marka dhulka la imaado yaa dhismaha la bilaaba. laakiin anaga waa ka duwanahay biyaanteerka dhismihiisa waxaan kasoo bilownaa salka hoose waa ognahay waa la carab buuxinaya aaga laakiin sidaan ayaa ka tayo badan oo waxa weeye dhagaxii iyo culeyskiisa waxa dul saaraysa meel aan dhisnayn. anaga dhismihii ayaa hoos kasoo bilaabaynaa waxa waaye shamiitaan ku bilownaa marka koobaad kadib biyaanteerka oo wada socdo oo dhisan ayaa kasoo baxaya gudka. marka soo dhawaada waa idin waxaan diyaar u nahay ama aan heegan ugu jirnaa inaan wax tayo leh ay idin dhisno Rexmayo dal iyo dibad. haddii aad wadanka ka maqan tahay waxaan ku gadi karnaa boos inta ku gadno ayaan ku dhisaynaa. marka waa ujeedaa dhammaan fundiyaashii waxay ku dhex jiraan gudkii dhismaha waxaa laga soo bilaabayaa salka hoose. marka soo dhawaada yani injineerada qaar waxay iska sahladaan hawshan oo waxay dhamaan la carab buuxinaya adeer banaanka lama carab buuxinayo wax la carab buuxinayo waa gudaha un. marka waxyaabaha sababaha kamid dad Rexmayo arteen guriga gadaal ka fuqfuqayo waxa weeye biyaanteerka salka hoose maba ka dhisnaba. marka soo dhawaada ayaa idin leeyahay anaga sidaan ayaa wax u dhisnaa waxa aan dhisaynana ma qarsano umadiinana waa u faa'iideynaa client-iga wax u dhisaynana waan ku qancinaa in ummadda Soomaaliyeed oo dhan ama adduunka dhan baan u soo bandhigayno oo gudmado aan wax ku dhisaynin. marka shaqo tayo leh ay ka shaqeynayaan dad xirfadoodu sareyso waxa weeye ayaan meesha ku haynaa walaal kaftan kuma hayne xaysiin bisana ma ahane yani reality iyo xaqiiqo ayaan meesha ku haynaa iyo shaqo sugan oo la saxay la hubiyay. marka waa kuwana inta isbaaga u xiran yani fuundi keligii shaqeynayo isbaaga dal xirta laga tagay ma jirto meeshan. waxa waaye ninka Maxamed Xasan baa yiraahdaa waa foreman ka mashruucan waxa waaye 4 isbaaga camal u xiran fuundi kasto iyo ay qasab ay tahay inuu raaco. marka insha Allah taala waa idin la wadaagi doonaa xogta kale oo ku saabsan mashruucan. soo dhawaada ayaa idin leeyahay waxaan heegan ugu jirnaa inaan wax tayo leh idin dhisno nagala soo xiriira 351352 ama WhatsApp-ka 5 12 12 14.